cabdi tahliil cudurkani muddo dheer buu hayay waxa uu ka soo bilaabay magaalada Jabuuti waa 2000 shirkii carta ayuu ku dhuftay stroke ama cudurkan yani maskaxda ku dhufta ee laba midun ka dhiga dadka ama geeri dhimasho ama dhaawac xun buu gaarsiiyay cudurkaasi oo halkan xamar wuxuu ku soo noqday isaga oo jidhkiisa gacan iyo lug ay baaba'san yihiin muddo 10 sano ah isagoo sidaa ayuu joogo xamar ku dhex luudayay 10 sanana waxa ku jiray kooma waxaan isleeyahay yani geeridiisu waa xaq oo ilaahay lahaa ka qaaday laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaanta yani naftii ku jirtay ee 20 sano ku jiray inuu dhinta waxa weeye ayaa ka roonayd isaga iyo dadkii dul joogayba waxay ku ahayd gaar ahaan 20 sanadood waxay ku ahayd culays weyn oo jira si gaara 10 sano ee dambe ee una yani jooginba kolkaasi waa dhibaato bani aadam ku dhacda tii u xumayd baa haysatay kolka waxaan isleeyahay ilaahay ha u naxariisto noloshii uu ku jiray geerida dhaanta ilaahay baa u naxariisanaya ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo eheladii fanaaniintii Soomaalidu ka tirsanaa dadweynaha Soomaaliyeedna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana jannadii firdawsa geeyo